madaxweynaha dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta waxa uu ka qayb galay kulan lagu hirgelinayay sharciga wada marista. Haddaba kulankaasi waxa ka qayb galay wariyahayaga Cabdiqaadir Xuseen Koronto. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed munaasabadani uu ka qayb galay oo ahayd mid lagu hirgelinayay sharciga marista wadooyinka ayaa waxa madaxweynaha lagu gudoonsiiyay taargada gaadiidkiisa iyo sharciga kaxaynta gaadiidka munaasabada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka cirka dhulka badda iyo dekedaha xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa madaxweynaha waxa uu ka qayb qaatay tabeelooyin ay ku xardhan yihiin astaamaha wadooyinka oo lagu surayay hareeraha wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo halkaasi saxaafadda kula hadlay ayaa waxa uu baaqyo kala duwan u jeediyay wadayaasha gaadiidka iyo shacabka Soomaaliyeed وأكيد ساكي هذا حافل الأرضي إلا مدة بلاياشة راسنا وحي تريسا وحي تسنيسا إن هر الله صعده كليا معها إن دولة شقينيسا حروق أو بدن كاجرد أو بدن وحليه لا يا شعب وحاول ديارسن دولة مدن وشعب دولة واجب كذا نوحي إن يكون كاميسو شعب الصومالي إن يكون كاميسو دولة مدن waxaan shaqo ku jirin dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay inaan tabeelada iska xil saari jirin marka waxaan rabnaa tabeeladaasha marka la mudo taraafikaduna shaqaystaan oo cidii khalad samaysan khaladkeeda ay la mariyo darawaliintana maadaama aysan la kulmi jirin ganaax iyo hawlo fara badan inay u diyaar garoobaan sharciga inay ilaaliyaan haddii ka gudbaan ganaaxa iska bixiyaan sidaas oo kale milkiilayaasha baabuurta ayagana waxaan ku dhiirigelinaynaa ilaalinta nidaamka maxaa yeelay sida la socotiin dawladnimadu waa nidaam iyo kala dambeyn amniga waxa u soo jeeda dad waana qaybahiisu waa kala duwan waa fara badan yihiin marka amniga waxa ka mid ah jidka sida aad u maraysid oo darawalku uu marayo waxay ka mid tahay yani qayb amniga ka mid ah soo galayso ah inuusan khatar samaynin si shilalku ay shil uusan u dhicin ay u muuqato yani kala dambeyn iyo inay fududaato wada marinta inay fududaato waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ee wasaaradda gaadiidka ka waday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho hirgelinta shuruuc ay wasaaradda ka soo saartay gaadiidka Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel Muqdisho xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wadaan mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ku meel gaarka ah sida uu faahfaahinta warkan ku eegay wariyahayaga Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaak ku dhawaad 200 oo mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya oo kulamo xasaasi ah maalmahaniba ku lahaa gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dhaliilo u jeediyeen gudoomiyaha baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay ku eedeeyeen inuu taageeray barnaamijka qaramada midoobay ee roadmap-ka kaasoo ay sheegeen inaan la soo marsiin baarlamaanka isla markaana ay u arkaan inuusan wax dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed kulankan oo ay xildhibaanadu ku lahaayeen hotelka Weheliye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen inay ku diyaariyeen mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan isla markaana ay u gudbinayaan gudoonka xildhibaan Sheegow iyo xildhibaan Umar Islow ayaa saxaafadda uga warbixiyay waxyaabaha xildhibaanadani ay ku eedeynayaan gudoonka sare ee baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya haddaba waxaan u aragnaa in gudoomiyaha baarlamaanku ka dhigtay xero isaga u xiran oo uu sidoo doono ka yeelo isla markaana uu hortaagan yahay habsami u socodka howlaha baarlamaanka si waafaqsan axdiga federaalka meel gaarka iyo xeeroosaadka baarlamaanka iyo in xubnaha xildhibaanadu u gutaan waajibaadkooda si waafaqsan axdiga iyo xeeroosaadka baarlamaanka kuxusan qodobka 13aad farqadiisa 3aad ee xeeroosaadka baarlamaanka wuxuuna ku mutaystay in laga hakiyo gudoominta fadhiyada golaha baarlamaanka iyo ka qaybgalka shirarka caalamiga iyo kuwa goboleedyada ee lagu matalayo baarlamaanka federaalka ku meel gaarka ilaa iyo inta goluhu kaga gaarayo go'aan arrintiisa golaha ammaanka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa kulligood
ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa roadmap-kaas korna waxaa looga qoray lahaansho Soomaaliyeed waa kor looga qoray ummadda Soomaaliyeed iskalaana annaga ummadda Soomaaliyeed wakiiladeedii annaga qodobka 28 axdiga ku-meelgaarka wuxuu leeyahay midnimada shacbiga waxaa wakiilka ah baarlamaanka Soomaaliyeed wakiilka haddaan annaga markay aadaas nahay iyo ummadda Soomaaliyeedba waa maqlayseen odayaal ayaa arrintaas ka hadlay annaga roadmap-kaas waxa ku qoran ma ogin mana samaynin mana ansixinin lahaansho Soomaaliyeedna ma aha gudoomiyaha baarlamaanka marka waxaan ku haysanaa maadaama uu yahay gudoomiyihii baarlamaanka hawshaas khiyaanada ah ayuu hormuud ka noqday hadalkani ka soo baxay xildhibaanadani ka tirsan baarlamaanka ku-meelgaarka ee Soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli in dhawaanahani bay aad u soo badanayeen dhaliilaha ku aadan roadmap-ka ee ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshaweynta Soomaaliyeed ka u muuqda in beesha caalamkuna ay socodsiintiisa ay ku cadaadinayso madaxda sare ee dawladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel magaalada Muqdisho culimada diinka Soomaaliyeed ee Sunna waa jamaaca ayaa cambaareeyay go'aan dhawaan ka soo baxay xarakada Al-Shabaab kaasoo sheegayay in ay ka madnuuceen qaar ka tirsan hay'adaha ka howlgala gudaha waddanka Soomaaliya sidoo faahfaahinta warka mar kale uu ku eegay wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen culimada diinka Al-Sunna wal Jamaaca oo ay soo qaban qaabisay hay'adda CCD ayaa waxa ay ku cambaareeyeen go'aankii xarakada Al-Shabaab ay ku mamnuuceen qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala gudaha waddanka Soomaaliya kulanka oo ay ka soo qayb galeen mashaayikhda golaha sare ee culimada diinka Al-Sunna wal Jamaaca iyo maamulka gobolka Banaadir ee Al-Sunna isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa lagu soo hadal qaaday arrimo dhowr oo ku aadan xaaladda ammaan darro ee ku soo kordhay magaalada Muqdisho ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay afayeenka golaha sare ee culimada diinka Al-Sunna Sheekh Cabdulqaadir Maxamed Abuukar Sheekh Soomow oo cambaareeyay mamnuucitaankii hay'adaha waxaan cambaareynaa sida hadda loo qoran baa Ahlu-Sunna wal Jamaaca nahay Al-Shabaab oo ka mamnuuceen inta badan hay'adaha inay dalka wax gaarsiiyaan waxaan kaloo cambaareynaa si weyn aan cambaareynaa falalka amni darrada ah ee birihan soo kordhay ee shacabka Soomaaliyeed lagu leynayo oo cadawgu oo adeegsanayo shabaab waxay rabaan hay'adaha ay mamnuucaan waxay ka leeyihiin ujeedada ay ka leeyihiin waxa waaye haddii kuwaas ay mamnuucaan in hay'ada kaalintooda buuxiyo ay helaan oo waxay rabaan ay ka qaataan marka koowaad waa dhaqaalado marka labaad وعلو أمضوا الحدود أمضوا حدين أسيرها ما حكوا قالي إني نحكارين مرت السؤال عاد وديجر واي وحكم علينا لا وقدو سأني شيء كل واحد على دور وحينما إليه ألاس العاد فربنا ولا نشك قطان هذا كواس كمان هذا يعني هو بدلا أو أيوك وحي روان فوق أوكينا دقالة أوكينا لعبت أوكينا وطليان إليه هنا روان waxaa sidoo kale isna kulanka ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Al-Sunna Sheekh Axmed Shuqul Sheekh Aadan Dheere waxa waaye waxyaabaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah qisaaskiisa ee ku haray halka oo dad loo wareejiyay dagaalka nafta dadka ka mid ah iyo xoogga dadka oo lahaa in dagaal loo wareejiyo oo dadka lagu baabiyo dagaalada xuduudaha ka bilowda dhamaad lahayn iyo dagaalada Soomaalida oo la sii socday dhexdeeda ahaa waxaan socdaa dad Soomaaliyeed inta looga qaaday Barawe Ismaaciil oo Yemen iyo laga dagaalgelay Afghanistan waxa waaye marka waxyaalaha ka dhalan kara waxaa ka sii dhalan kara disasterka abaartu keentay mid ka badan baa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara caalamka oo dhan uu ka go'doomo gobolkaasu oo ay ka dhacda masiibo aan caalamka dhowta jawaab u heli doonin waa mas'uuliyadda caalamka oo dhan saaran waxaa ka dhacaya koonfurta Soomaaliya mas'uuliyadda caalamka oo dhan uusan geli karin waa no reason sabab lagu hadhowta lagu doori karaa ma jirto waayo adduunku maan power noo haya teknolojiyada caqliga noo haya dhaqaalaha loo haya looga fujiyay shabaab dhulka iyo dadka ay xasuuqayaan maalin kasta xildhibaan Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko oo goobjoog ka ahaa kulanka ayaa sidoo kale khudbad dhinacyo fara badan taabanaya ka jeediyay isagoona ugu baaqay dawladda ku-meelgaarka inay wax ka qabato ammaanka magaalada Muqdisho dawladda ku-meelgaarkana waxaa laga rabaa inay arrintaas u fududayso dhulka la jooga ammaankiisa u sugto masaajidda iyo meel walba iyo
goobaha dadka Soomaaliyeed joogaan ama suuq ha ahaato ama waddo ha ahaato dadka Soomaaliyeed waa in la baraarujiyo waa in makarafoon loo qaato waa in jidadka la maro inta dhiman wadankana waa in la qabto way inta dhiman wadanka dawladda ku meel gaarka kulli qorshooyin uga yaaleen waa in la qabto sida ugu dhaqsaha badan hadii kale waxa weeye roobka Ilaahay keenana laga faa'iideysan karo ayadii dadka u soo gurmadeen waa taa la raacdeeyay waxa imaanaysa marka in dadkii Soomaaliyeed meeshii hadda ay ka yimaadeen majacada iyo baahida iyo dhibaatada ay u laabtaan dhawaan ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanada ay ka arimiyaan ay ka mamnuuceen ilaa 16 hay-adood oo ka howlgala gudaha wadanka Soomaaliya. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho.